السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثرة والقلة بدنات يرانتا ددك بدن iyo dadka yar Soomaalidu markii la dhaho waxaan iska daama banaana maxay u isticmaalaan uraahda ah dadku babay sameeyaan iyo uraah kale ah dadku badana bay sameeyaan ku soo dhawaada mowduuc ku wajahan Soomaalidu ku imtixaan cudurkaas xun magacaygu waa Umar Maxamed halka adiga daabanaysan waa kanalka Garwaaqsi soo dhawaada saaxiibayaal oo ka mid noqda bahda ku xiran kanalka Garwaaqsi kuna soo dhawaada mowduuc qurxoon oo kala dhigdhigan dadku waxay aaminsan yihiin in dadka badan ay fiican yihiin ayna ka fiican yihiin dadka yar waxay aaminsan yihiin in tirada badan ay fiican tahay ayna ka fiican tahay tirada yar laakiin quraanka wuxuu caayay badnida ama tirada badan wuxuuna amaanay yarida ama tirada yar dhinaca waliba oo kamid ah nolosha bini aadamka iyo majaal kasto oo kamid ah majaalaadka nolosha bini aadamka ha noqoto dhinaca iimaanka ha noqoto dhinaca tirada ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagoo la hadlay nabi muhammad wama aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin nabi muhammad حتى هدي الدداشو ددكو بدن كودو معهن كو مؤمنين يعني ددكو بدن كودو معهن كو مؤمنين هو إيمان له نبيد إلهي وحال صو صاري أما إلهي صو ديري حيلي بادي دا إيو قال لماذا أي بدتي أينو كفاف تقبمان ددك كنول ميشا لو صو ديري نبيداس وحا حسيد مدن قفك لو صو ديري وحال قف أكريا وحانا لو صو ديري قوت اسكو حرم اسكو نبايستي مدى حديق إيو قال لمو dagaalkii badar muslimiintu way guuleysteen iyadoo tiradoodu ay aad u yareed waxayna la dagaalameen ayna ka adkaadeen ciidan xoogan oo tiradiisu ay ahayd ku dhawaad 3 jibaarka tirada ciidanka muslimiinta Salaahuddin al-Ayyubi isaguna wuxuu la dagaalamay Saliibiyiinta ama Kirishtanka waxay iska hor yimaadeen dhowr dagaal Salaahuddin wuu ka adkaaday wuu ka guuleystay Saliibiyiinta dhammaan dagaaladii ay ku kulmeen isaga iyo Saliibiyiinta isagoo tirada ciidankiisu ay ka yareed tirada ciidanka Saliibiyiinta uu ka adkaaday kana guuleystay Qaaruun isagana wuxuu kamid ahaa qoomkii Nabi Muuse قارون وحو إلهي سي مال فربضان فرها بقارديس وحا لغو قادي جري كوحدن أما قوتي اسكو حرن لكن وحا سو إذن إيو مال كاسودن وحب أمترين وحنا كمفائدين وأن كأهين هلاك يو بابا إلهي سبحانه وتعالى وحيري إساقو كهدلا قارون فخسفنا به وبداره الأرض قارون إيو داره صودن يعني قارون إيو مالكي أوهي استيو إذن وحينو لجرني أو إنو لقويني دولك قار كمد السلف كي هرب حيدهن لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين هكا مرجن يرانت اي يريهين ضدك هي وضد سحن اي حقا هنا كوكت سومين بدنانت اي بديهين ضدك هي وضد هلاك اي باطلك وحاير ضدك هي وضد سحن اي حقا وحاسبضا ضدك هي وضد هلاك اي باطلك علماء الحكم والفلاسفة علماء الفلسفة اي حكمة وحيليهين هدي اي بتان مسؤولين تهال شقو وحا اسكهر ايمانا يقوانا مسؤولين تسفرها بضن waxaana meeshas ka dhalanaya fawdo iyo buuq waad fahmi kartaan muhiimada meesha ku jirta waxa dhibkaas iyo fawdadaas kiciyay waa badnida mas'uuliintaas waxa jirta xikmad ingiliisha oo leh the many are worse than the few badnida waxay ka xun tahay yarida ama yaraanta yaani yaraanta ayaa ka fiican badnaanta dadka qaar hadii aad dhahdo waxaan ha sameyn waxaan ma banaana jawaabtoodu waxay noqonaysaa dadku babay sameeyaan iyo jawaab kale ah badana dadku way sameeyaan waxay marmarsiyo ka dhiganayaan in dadku ay sameeyaan arintaas xun aad ka celisay oo aan fiicnayn hadii aynu kala furno quraanka kariimka ah kadibna aynu baarno kelmadda ah aktharu an-naasi oo micnaheedu yahay dadku badankoodu waxa xiga la ya'lamuun la ya'qiluun la yashkuruun dadku badankoodu waxba ma oga dadku badankoodu aqli ma lahan dadku badankoodu ilaahay abuurta kuma shukriyaan sidoo kale hadii aynu baarno kelmadda ah aktharuhum oo micnaheedu yahay dadku badankoodu waxa xiga faasiquun yajhaluun mushrikiin dadku badankoodu waa kuwa faasiqiin ah dadku badankoodu waa kuwa jaahiliin ah dadku badankoodu waa kuwa mushrikiin oo aan tawxiid lahayn walaal waxaan doonayaa inaan kuu sheego hal arin oo ah adiga kamid noqo kuba yar ama tirada yar oo ilaahay dhahay wa qaliilun min cibaadiy ash-shakuur waxa bayar adoomadeyda kuwa igu shukriya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagoo ka hadlayo nabi nuux wama aamana ma'ahu illa qaliil nabi nuux ma ayna raacin oo qoomkiisa ma rumaynin illa qaliilun waxir mooyaane shaydaan la'anatullahi alayhi isagoo balan qaaday wuxuu yiri la ahtanikanna dhurriyatahu illa qaliil nabi آدم عرورتيسا وان أمنيا دمانتودا إلا قليل وحير موياني كمد نقوكو وير أو إلهي أماني نبي نوحنا الراعي شيطان كان أمن واي إن شاء الله الدنيا آخر قول آيات جاري
inta aanan mawduucan soo gunaanudin ama aanan soo afmeerin waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo hal arrin. waxaan idinka raaligelinayaa maadaama ku dhawaad 3 isbuuc aanan wax mawduuca soo gelin kanalka. waxaa isoo wajahay private problem. insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgeliyo. waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo, farxad iyo reynreyn. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.